niman aan la yaabo oo maanta ka madaxa muqdisho madax ka sheegta oo cid ka madaxda ma jirta madax ka sheegta ayaa waxay yidhaahaan israaca Soomaaliyeed muqaddas wey kelmadda muqaddaska ay garanayaan u maray maayo waxay tahay muqaddas waxa weeye wax dhowran oo ilaahay loo nisbeeyo oo nadiif wey ninka muqaddas ku sheegaya waxa maanta Soomaali dhex maray waxa kala kaxeeyay waxa kala dilay ninka muqaddas ku sheegaya muqaddaska aan garanay dhaxlaa waxay tahay haddaba haddii maanta waxaad weydiisay goormaad in dalku kala go'goosatay waxaan goostay dalku inuu kala go'o markii aan arkay dadkii reer waqooyi oo tashanaya oo tamar leh oo wixii dhexdooda yiilay shalay dhalay ka noqday xalay dhalay ka noqday oo maamulanaya dalkoodii iyo dantoodii ila laba suuga markaas oo la yiraahdo lagu xidho nin isagu danaysan kari waayo nin dhiigoodii inuu isu xalaaloobo banaystay wara dad isu cunaya dad tashaday iskuma xidhnaan karaan in loo taliyo dalkii markaa maantaasan kusay markii shirkaasi baaba'ay ee aan quustay in xamar wax ka hagaagayaan ka quustay shirkii baaba'ay wixii xasan guuleed ku dadaalay ee kulligii lagu wada dadaalay iyo qaraaradii la qaatay sidii wax loo habeeyay markii laga baydhay xabalintii la tagay xabad la isu qaatay aan ka quustay in xagga dawo ka imanayso ayaan kuwana dawo u dhaway kuwa ku biir dhaqaaqda ku biir sigan wala carabka ku hayso waa aqoonsiga ma aha wax hadiyad loo bixiyo dalkayaga markaan dhamaysano ee dawladda dhisno imika yani waa bilqasab ku imanaya dan baa keenaysa waa la isku danaysanaya markaas waxa ka horeeya waxaan dalkii dhisno marka waxaan filaynaa hadii aanu anagu ka soo baxno shaqadayadii oo dalkii la arko inuu dal dawladdiisa gacanta ku hayso oo dhisan yahay inuu looga bari maayo marka aqoonsi ugu dambeyn ingiriiska ay hypothetical question yani waxa weeye su'aal de si ay u soo gashaaba aan jirin xamar nimanka isu geyn waay maxay hayday iyagii maanta isku dilaya ana madax noqonaya ee ay maanta 1 milyan kala marayaan dhiigisa uu qulqulayo weli ilaa imika haddan isu hub samaysanayaan maalinta Mareykan tago nin waliba ninkii kale saabiyay horta si ay wati maado nin kale aan madax ka dhigayna goosashadeen aynu ka goosanay koonfur macna iyo qiimo ay leedahay ma jirto hadii wixii aynu ka baranay xamar ku baranay aynaan xamar kaga imanin oo inaan halgeeyso sidii aynu kaga tagnay ugu soo noqonin goosashadeen macna ma aan filayo inay mar labaad raali ka noqonayaan in xamar laga xukumo waa xamar baasboor doonta hadii xamar xukuumka gaba laga daayo hargeysa iska xukumanaa laakiin Soomaalidu mid ha talayna waxa mustaqbalka ay taas ma wax suura galaanay hayne hadii la yiraaho way ka tashan doonaan hadii la waxa dawladda ka aan diibi idinku annaga xukuma way ka tashan doonaan bay la tahay laakiin anigu saan dadkii ku ogahay maanta halkii taagan tahay dadkii ma ogola maanta in mar dambe ay maxay hayday cid kale dawladnimadoodii ka daba joogaan iyagoo reer waqooyi ma aha isaaqa ma aha gadabuursiya ma aha iyagoo reer waqooyi reer Somaliland ma ay ogola tan iyo way wax suura gelaysa tahay in maxay hayday ay dhismi karto oo iman karto waaba la oran karaa waa laga murmi karaa laba yaa hal isku diido hal isku yeelo waxa laga murmi karaa weey waxa maanta xamar jooga yaan raacna dadku waxa leeyahay ka go'in yaanaan ka go'in in annagi in la canaado la ila go'y karimaysan sida caadi hadi mooyaan wax nolol qameelna lagu celiyo wara ka tagina taasir ma hayno xakiim mihi inta laakiin waxay ugu binixsan yihiin maanta Soomaali caafimaad baan leeyahay oo ay 3 raasiyad iyo 2 iqliim ayyaad oo maanta ay dalkii ay jaarka la ahaydna la wada nabad tahay wixii aynu islahayn israaca ku helaysaa ee ku weynay maanta inagu oo 3 qoys oo walaalo ah hadii laga helo reer koonfureed hadii laga helo oo aanay ku dhooqan aanay dhiriqaynin walaalnimadii iyo wanaagii iyo wadajirkii hadaan iyagu dhiriqaynin waxa la Soomaali maanta ayay
noqonaysa iqliimkana qiimo ku yeelanaysa iqliimka gudihiisana ay qiimo ku yeelanaysa aad baa